deeqda ayaa la gaarsiiyay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool gaar ahaan xarunta hooyada iyo dhallaanka ee Tukaraq. Isuduwaha caafimaadka ee gobolka Sool iyo agaasimaha isbitaalka magaalada Laascaanood ayaa deeqdaasi gaarsiiyay. waxaana deeqdaasi ay tahay mid wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ay ugu talagashay sidii degdeg loo gaarsiin lahaa deegaankaasi dawooyin. iyadoo wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil uu bixiyay in la gaarsiiyo dawooyin halkaasi. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay madaxa xarunta caafimaadka ee Tukaraq Faadimo Cali Maxamuud oo ka hadashay dawadaasi la soo gaarsiiyay. bismillaah halkan aad arkaysaan waa MCH Tukaraq. waxa meeshan joogaana waxa weeyaan shaqaalihii MCH Tukaraq degmadan kamida gobolka Sool. waxa dawada tan inooga timi wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland. waxaana noo keenay isku dawaha iyo agaasimaha isbitaalka oo dawada tan noo soo qaban qaabiyay noona keenay markii ay arkeen deegaanka indha ku sameeyeen dawooyinka iyo waxyaalihii ka dhimanba. waan u mahad celinayna dawada naga soo gaadhay wasaaradda iyo agaasimaha iyo isku duwahaba. aad baa u mahadsantiin dawadan aad noo keenteen dhammaan shaqaalaha iyaga caafimaadka. waan idinka mahad celinayna sida aan ugu guuleysanay dhibaatooyinkii jiray ee caafimaad darro maadaama aan ka fargarayn karno dhibaato kasta oo ku iman karta hooyada iyo dhallaanka aan u qabano adeeg kasta ay u baahan yihiin wixii la soo gaara. Cabdinuur Maxamuud Muuse oo madaxa caafimaadka degmada Tukaraq ayaa halkaasi uga mahad celiyay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyo wasiirka caafimaadka Dr. Xasan Ismaaciil. waxaanu aad mahad celinaynaa aadna ugu faraxsanahay daawooyinka ay noo keeneen wasaaradda caafimaadka ee wasiirka caafimaadka Dr. Xasan oo aanu aad iyo aad ugu mahad celinayno isuduwaha agaasimaha daawooyinka ay noo keeneen oo noogu keeneen annagoo baahi weyn u qabno u baahan noo keeneen deegaanku u baahan yahay annagu u baahannahay. aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa aad baanu ugu faraxsanahay annagoo adeegayaashii ah degmada ama deegaanka Tukaraqeed agaasima adeegayaashii u adeegaya aanu nahay. dadkuna uu xilli adag lagu jiro xilli baahi fara badan lagu jiro xilli xanuuno badan jiraan lagu jiro daawooyin dhammaystiran bay noo keeneen. agaasimaha isbitaalka Laascaanood Fahimo Kowsafare ayaa iyaduna halkaasi ka hadashay. daqraadna waa nimi maantana waa nimi amar wasiir baan ku nimi mar haday noqotay magaaladii Tukaraqeed amni soo gaareen Soomaaliland. waxaanu aragnay baahida weyn ay u qabaan daawooyinka annagu agaasimo ahaan iyo isku duwahaan waxaan isku xilqaanay inaan daawooyinka keeno isbitaalkana ka soo qaadno iyo meelahay wax noo yaaleen inta waa in yar ay ku sii shaqeynayaan laakiin baahida weyn waxaan rajaynaynaa wasiirka Xasan Ismaaciil Yuusuf ayaa keeni doona baahida weyn iyo daawooyinka annagu inta waan ku soo gaarsiinay. magaaladuna aad bay u weyn tahay wasiir magaaladu waa amni waa u jeedaa maanta MCH baan joognaa. sidoo kale waxa halkaasi dawada guddoonsiiyay aabada caafimaadka Tukaraq Dr. Bilaaxi Maxamuud Isuduwaha waxaan mar labaadkii aanu booqanay degmada Tukaraq MCH keeda ama xarunteeda caafimaadka. ما شاء الله إلهي وما هذا السنة بتقليها وأنا كنت جني شقادنا وي وضن شغاله عافماتك MCH كا هذه آد وحنا نقوم هذا علينا وسيرك وزارة عافماتك دكتور حسن إسماعيل يوسف ورنتي أرنتن حيلس كساري نقول بورية إن السعودال كان قالله قالها وحنا أورنا يا هالله شقي يدتك الدبية ده يدتك تماتر درن عرورته هو يوينك دتك أنا وحبا هاي السنة دوين كان يبسنكرين dawooyin muddo idin wadi karaan idin keenay. waxaan walaalayaal idin ka codsanayaa in dadkana ha loo naxariisto hana loo gurmado dadkeena jilicsan. waxaanad ka shaqaysaan wacyigelinta bal IDB-yada ilaa 6 IDB baad sheegteen oo maalintii dhaweyto magaalada degan inaad siisaan baraarujin caafimaad oo aad xagga saxada biyaha nadaafadooda aad ilaalisaan. bal inta hawlaha kale aan idin wasiirku ku maqan yahay wasiir Xasan Ismaaciil Yuusuf ku maqan yahay inteedu soo gaari doonaan wanaagsan dhanka shaqaynta iyaguna ay dadka deegaanku ay si weyn u caawin jireen iyo qurbo joogta. waxaana kaalintoodu ay halkaasi ay ka maqan tahay hay'adaha iyagu caawiya MCH-da ama xarumaha ku taageera mushaaraadka ay qaataan. waxayna sheegeen wax dhaqaala ama mushaar inaysan qaadanin bahda caafimaadka. Cabdikariin Nolol Somali News magaalada Laascaanood.